السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقا نوردي عن درساق محمد يوتيوب كينان ونوردي عن درساق كسو دوادا موقال عصب بليز فيديو لكن صار آدي أدباد وماسن maanta barnaamijkeen wuxuu ku saabsan yahay saaxiibtinimada. Saaxiibka wanaagsan waa kuma iyo faa'iidada uu leeyahay saaxiibka wanaagsan. Waxa u horeeya waa maxay saaxiibtinimadu? Saaxiibtinimadu waa iska warhayn, is-aaminaad, isku kalsoonaan, wada socod u dhaxeeya labada qof iyo wixii ka badanba si daacadnimo ay ku jirto. Saaxiibtinimadu ma aha wax aad aragto ee waa wax aad dareento. waa kuma saaxiibka wanaagsan? Saaxiibka wanaagsan waa sida uu sheegay rasuulkeena suubanaa salawaatullaahi wasalaamun calayh markii uu tusaale u soo qaatay saaxiibka xun iyo saaxiibka wanaagsanba. waxa uuna yidhi, saaxiibka wanaagsan waa sida qof ka shaqeeya carwo ama meel lagu iibiyo waxyaalaha udgoon dadkuna ay jecel yihiin. haddii aad u tagto aana wax adar ku siinin, waxaad ka soo baxaysaa goobta adigoo aad u udgoon. taasi waxa ay ugu wacan tahay waqtiga aad la joogtay. saaxiibka wanaagsan waa kan kula wadaaga murugada, farxadda, waana kan aad isku halayn karto waqti walba oo aad u baahan tahay, waana kan aan kaa fogaanin, aanan kugu nicin danyarnimada. saaxiibka wanaagsan waa kan aanan jeclayn xumaantaada, waa kan kugu waaniya, waana kan ku dhiirigeliya inaad xaqiijiso riyadaada. qaybta ugu dambeysay ee mawduuceena saaxiibka wanaagsan iyo faa'iidada uu leeyahay, alla subxaanahu watacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay, ruuxii shaydaan u noqda saaxiib ayaa leh saaxiibka ugu xun. halkaas waxaad ka garan kartaa nolosha inay qayb ka tahay saaxiibtinimada. kusoo gabagabeynayaa barnaamijka maanta. barnaamijka imtixaan ayuuna ahaan doonaa. biliis idinkan waxaa idinka codsanayaa inaad janaalka subscribe inoo saartaan, fideogana like aa saartaan, aadna sheer garaysaan. aad iyo aad baad u mahadsantihiin.